بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما أنت واحد شعر استئنا رالي قلين يا أبولو تشيس سيو وسارد أرمها قدها يا جمهورية الصومال لان وقلوا ذلك يا هاي محمد كاهن أحمد رالي قلين تاس وكبلتي حلو ريجنتي لبض حرية دقمة بربراء عبد الكريم عادن عدي سهيب كلمات كي دي القاف كي يقفك كؤها guud ahaan wasaaradda iyo qarankanba oo uu tibaaxay maayirka degmadaasi cabdishakuur in interest loo bedelay iyo dana ay ka lahaayeen wasaaradda arrimaha gudaha cabdikariin isagoo ugu goodiyey suhayb inuu mas-uul ka yahay hantida berbera oo wax miisaaniyadda ka baxsan aanu ciidda dabada ka wada suhayb u gudbin karin sidaa laa jeed marka hore waxaan ku horeynaya wasaaradda arrimaha gudaha oo maanta garwadeen ka yahay mujaahidka weyn waayo aragga ah maxamed kaahin axmed oo sida la ogyahay dalkan soo halgamay oo sida la ogyahay ka qayb qaatay dhismihii dimuqraadiyadda dalkan oo sida la ogyahay madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo daahir riyaale iyo axmed siilaayo ka fadhiyay banaanka guri kale ana ku jiray ilaa iyo maanta muddo imika 3 sannadood marka laga soo bilaabo muddo 4 sano ku siman ayaa waxa uu kullay qarankan uu hayay shaqada wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose maxamed kaahin oo aan dalkan halgankiisa iyo shaqadiisa isagu aan laaluush iyo dana isaga u khuseeya aan midnaba waxa weeyaan una halganin dalkanna u dhisin waxaanu leenahay hadalka ka soo yeedhay cabdishakuur mudane wasiir xaal baan adiga wasaaraddaada inta ka hooseysa inta kula agaasinta inta xilka kula haysa xaal iyo apologies iyo raali gelin anigoo ah ugaaska guud awal bari ayaanu ka bixinay waxaan leeyahay cabdishakuur waxa tahay dhurwaagii laftu dhuuxay eersaday nin waraabo ari raaciyay oo ay ku sii daayeen afku ka xiriso markuu eega cuni maayo berbera 9 sanadood oo u dambeysay cid danteedii guud habaysatay cid boobka iyo taadiga iyo dulmiga iyo cadaalad darrada waxa weeyaan u bahoobay reer berberada way yaqaanaan berberi waa magaalo hoosta ka gubanayso dulmi badani ka dhacay boob badani ka dhacay boobkaas oo hogaaminayaan xogayaha la bedelay iyo maayirka degmada iyo inta agaasimka ka dhulka berbera dantii guud hadday tahay dhulkii ay lahayd dekada berbera hadday tahay dhulkii haamuu lahaa hadday tahay dhulkii airportku lahaa hadday tahay guryihii ay qaar garsoorka dalkani ay lahaayeen oo maxkamadii qaadiga berbera malcaamadii musaja waxay ahayd gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaa haddii wasiirka inta ka hooseysa arinta uu cabdishuur ka dhawaajiyay ay waxa weeyaan khusayso inuu wasiirka kala xaalaabay ahayd hadday wasiirka laftiisa khusaysana inuu madaxweynaha kala xaalaabay ahayd inuu madal xilwareejineed arinta waxa weeyaan inta leeg uu cabdishakuur ku duro wasaaradda arintaasi waxaan u aragnaa waa marmaris iyo xajiimeyn iyo ceebaan wasaaraddu lahayn xaal baanaanu ka bixinay waxaa kaloo aan bulshada reer berbera u ballan qaadayaa inaan soo bandhigo la wadaago bulshada 8 sanadood ugu dambeysay aniga waxaan dhimin waxla dhaafin waxa ka dhacay magaalada berbera ay ugu dambayso taxire abo maanta dadkii deganaa ninna gurigiisii sharciga loogu siiyay ninna maanta danyar noofa ah oo lix caruur ku korsanaya xamse cabdi jaamac leeyahay ka guuriyay wixii la halmaalaba arintaas waxa loo leeyahay arin aqbali karana maaha waxaan wasaaradda iyo madaxweynaha qaranka soo jeedinaynaa berbera in hoos loo eego oo odad loo diro oo guddi xaqiiq raadina loo diro oo berbera xisaab celin baanu ka rabnaa 8 sanadood ee teeramkii hore oo hogaaminayay maayir cabdishakuur haddii aan ka warramo tashirka beerweynta ciise muuse ay iclaamiyeen habar baa laga hayaa cadan tagtay cadan la tagayo hal tukada lagu kala beeruwa shirka in ciise muuse isugu yimaado ilaa madaxweynaha qarankan ilaa bulshada Soomaaliland in reerkaas isu yimaado isturxan saaro aad iyo aad bay u daneeyeen la soo dhaweeyeen shirkaana
طبعا قابضي سيبا سعطاه noloshii shirka la isugu iman lahaana dhawaan baa la cayibaya haddii ilaahay ka dhigo ergooyinkii beeshuna way iman doontaa haddii ilaahay ka dhigo shirkaasi wuxuu u socdaa si wacan annagoo weliba uga mahadnaqaynaa qurbajooga beelweynta ciise muuse kulan galoobal annagoo uga mahadnaqaynaa qabanqaabada iyo isu keenidda reerka markaa shirkaasi insha allah bidilaahi kari dhawaan buu qabsoomi doonaa gobolka saaxilla uu ka qabsoomi doonaa ergooyinkii iyo gudidii dan iyo ducooye gudidii kulan galoobal iyo reerka xajiqaadkiisa loo sugu haddii lahayd cabdishakuurin badan buu maayirha dabcan imaka eedaynaysaa markii hore muddadaa dheer musuq maasuqa iyo waxaad ku eedaynaysaa may jirin miya waxaa la yidhi bidda anigu ku sheegi maayaan camalkaa ku sheegin in badan waxaa dulmiga berbera lagu qariyey geetimireed la yidhahdo igu sawir iyo shahaado beenbeena berberana waxqabadka dadku had iyo jeeraale indhahooda qabtaa waa laamiyada yaryar ee lagu fuliyey lacagta degme ahaan u soo gashay magaalada berbera hadday tahay tan beersanka hadday tahay ta GBLG-ga hadday tahay lacagtii injineeriirisow ee ay gobolkaas Somaliland gobolka berbera lacagta badan ay ka soo gashay markaa waxaanu leenahay 5% lama gelin berbera dhaqaalihii ka soo baxayay berberada waxa ka dhacay dulmi iyo boob badan inaanu sheegnana isagaa in la sheego isagaa cilaamiyey oo wasaaradda arrimaha gudaha u nisbeeyey inay laaluush ka doonayso xogayaha yar ee Suhayb oo ahaa nin xogayo hore u soo maray nin ahludiina nin waxa weeyaan aan looga warwareyn wasaaradna laaluush geynaynin shaqada loo geeyay looga warwareyn